بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما أنت هو معراجكي أو مال بركيسان أو أمة الإسلام كان بدن كود وفصح إلا جنا وحين هو بيجنتي مال أنت خير كبدن نفرنا بريجكم. وحنا أدي أظن ما ضغينا دولة الإمارات كعربت أو إنه الجلسي مشاريع بدن أو إنه بدن وسوي شغلي نادل كذي بالله أيوة قادر نكون تاجران سوماليلاند أو إذا كده إيربورك يوضع ذلك كم ذهيل أو رنتي داق ولا تنمو أو معاونة ولا ليضة شركة ليس إنسان كده هو شركة مشتري أو نهشيس ولا قلبة مشتري لكن هو شجروك يوضع وحلو عاوية دولة الإمارات كعربت مشروع عين تعلق دولة أصدقائك وين وقصوا تنتهي تذكر هو إنه قلوبيه دولة دولة وين وقصوا تنتهي ودولة دي أنت أصلا معاونة نسيسة يوحي كلا سرعة عبر أدي أدي نوابك وهينا سوماليلاند كيدو يوم مديدنا أبالك وي قداه سؤال حتى هذا بودي ركبان ما بيتبقى قاوري حدي ما تا وحكي فيه سوماليلاند حق نقالها إن شاء الله وين قدونا هو حول إنه دين لا ينوقلي ولا تنوى إنه مكان تاي تاسع خرافية وحنا دي أظن أن غيار مرتشنا في تاريخ جوكت لما أنتوا ده شركة سوق غيب قلي وحنشعر ما أنت لو إنه هالك فرينا نأذو ما نقول وضدك حوشر يتعوشها برجيل جوي حول بدن وجيستي أو عملك جيستي وحلباكي خراء دقبدن أحمد ويسعده على حول ملايين دكتور أنت بدل هيي أو دكتور إن بدل سوودي ما أنتي لوري شيء الدولة وكل شيء سعيد هي إمارات إلا ما أنت روحي تمر هي عقلي هي وهي ويرجع بابا إسقونا كنت أو أنت قرأتنا أضياشي ما كمدا كلا هالكوا فرنساناتين تي أغاش كيف عقل كيه hawsha aad weydeen wixii ay ku soo rafaaday iyo doodii naga dhacaysay iyo murankii iyo wixii la gaaray alxamdulillah maanta inaan miraheedu joogno cid kastoo ka qayb qaadatayna aad iyo aad baa loogu baaqayaa dadweynaha Soomaaliland waxaan u sheegayaa meel kasta ay joogaan aqliyada marka mashruuc la wado horumar ee la keeno waxa laga doonayaa inuu iska taagno aqli ma aha أنا ما هي تمرة وحكولستو تمرة معدن كوقتو تمرة بترول كوقتو تمرة المشاريع بأول كوقتو حدنا كيلي كنا هو سرت عجيا أو أنا كترنا عيا أو تيدا ليريا وما سأرس دستور كل حلي هاي خيرات كدلك يمام الكيسة قرن كسوال لا تبارك قرن كنا وحويج بدي دولة وحياة كتوه إلا قاطع والله اسم قلاه markaasaynu hor u marayna waxaan aad uga mahadnaqayaa deegaanka ay wadada martay iyo mashaariicda kalawa inay taa ku dhaqmeen oo qaateen mashruucii dawladdu keentay waxna la qabteen kuwa kale inay ku daydaan ma ka doonaya hadii ilaahay raaxo hadalka maanta halkan ay leedahay intaas ku dhaafaya walaalayaal dalka waxa ka jirta abaar kulul sidii ilaahay looga bartay todob ayaa bilaabmaya kontakii ayoodaashii jiray waa siyaariyeel kontan habeen ka bacdi waa roobkii la filayaa bisha April 18 ugu dambeyn sidii ilaahay nooga barin ugu dambeyn jiray maantana waxaan joognaa 28kii February waxaynu haray March April oo laga yaabo inay aad u kululaato dalka dhammaantii inta badan waxa ka jira biyo la'aan wali waxaan ku laadanahay xooluhu daaqina way haystaan xooluhu ma leecin sida dadka qaarkii waxa uga tabinayaan miidiyaha arintu ma aha balaayo aanu ilaahay ku keenay in loo yeedho ma aha waxaad maqlaysaan dad baa dhintay oo la oranay haddana been baahay waxaan arkaynaa sawirro sanado hore oo la soo dhigayo baraha bulshada oo leeyahay dadkii xoolaha waqtiyaha la soo gaaro waxaan idin sheegayaa xoolaha bariga gobolada bariga jooga wali xooluhu xoog وارستي وحيسي قلنا وحيستان هذا سيرادة دبعتها تاجنيد لودي برود النصارى عفي كنت كهبين إنه هذا هو بيلان بيها على أنت هورنا
dowladda waday haddana waxa ku soo biiray intaan ogahay 3 ganacsade oo iyaguna ballan qaaday hadda bixiyay mid waliba 1,000 boodood inuu ku deeqo kuna ballan qaaday inay wadayaan hadda abaartaas beeraantaas ay jirto waxa isweydiin la ganacsada Soomaaliyeed way badan tahay 3 nin oo wareega maaha waxa la yaab la ganacsada badankeedu inaanay ka qayb galin dhibaatooyinka dalka ka dhaca 4 qof baa lagu eegaa ama 5 qof baa hebel iyo hebel taasina xaq maaha waxaan hubaa xoolaha Soomaaliland hayso hadday isku gurmato inaanaan u baahnayn bariyo bini aadmi inaanu haysano waxa nagu filan haddaynu is iimaansano oo qof waliba uu halkiis kaga gutado inuu hawsha ka qabto waxaan u soo jeedinayaa ganacsatada iyo qofkii waxayaba iyo qurba jooga iyo qof kasta waxaya inuu markay dhibaato jirto ka qayb qaato oo toos qaybtiisa uga galo hadda waxa lagu dadaalay 2 bilood waa sayid dowladdu 45 ceel baa la kiciyay kuwii hore socday mooyaan maalin walbana ceel kasta ceelka ay kun halaad ka cabayso ee kun reer u taagan yihiin waxa laga yaabaa inay deegaanadu ku qaraxdo 3 isha gudahood way u haysaa wasaaradda biyaha iyo gudida abaaruhu miisaaneed bay ugu talagaleen ay ku dayactiraan dhammaan wixii ceelana ilaa 4 ceel imika waa laga qodayaa jiidaha ay ka dhacday biyo la'aantu oo ay laba ka mid yihiin maanta inay hawl galiyaan filayo intaa waxa dheer gudida abaaruhu waxay waday lacag ka badan $1,800,000 ayay biyo gelisay iyo boodo 2 bilood hore jiray maantana intii leg 3 ganacsade Maxamed Saciid Habshiil Maxamed Saciid iyo Ismaaciil Weel Rimid saddexdaasi ayaa iyaguna marka keenay wuxuu yiri waa ku jira tijaarta kala war soo raacda nin wali waxa uu waro bixiya waa inay soo gurbadaa waayo mas'uul maalin deegaan bay ku dhacaysaa uma baaharin baan qabaa baryada badan aw dhaqaale inagu filan weyn soo hayn hadii Soomaaliland wax celinayso maanta wadada lacagta lagu dhisay waa 9 milyan ina wax raacaan baa laga yaabaa 3 tijaarteena kamid way maal galin karayeen haddii aqoonta u doonaan lacagtana waa laga soo saari karay taburcayna suuysa waa qaba intan ka badan wadada oo baahna burco tijaarteena afri kartaa waa soo madhageen ku dhiiradaan lacagtana way kala soo bixi karaan waxaan waxay u baahan tahay inaynu ogaano horta inuu waxayno aynu ka baxna aqliga ah fuqaraan tijaarta walaana ma hayso marka loo eego waxa jira tijaar dhexe oo iyagu xilbay saarin oo had iyo jeer dawladda cashuur kala baxso la warwareeg murakeen mooye aan mar qura cusbitaal ka qayb galay hawshiisa tii aafadi koonfurka ka qayb galin taabaraha ka qayb galin intaas waa iga war iyo xogogaalnimo sida ay dadku yihiin maanta adduunka waxa ka dhacaya waa ogtii oo dagaal baa ka dhacay adduunka oo dhan saameeyay dawladii waaweyn way kala urursadeen nin waliba wuxuu soo xareystay inay ciidamada soo diyaarsadeen oo ogtii dhaqaalaha adduunka loo bartay ee adduunka maamul jiray nin waliba wuxuu soo watay nin walba maxaa tabcatay waa soo socotay ayaa taagan maanta nin walba maxaa tabcatay rag baa waaweyn oo siyaasiyiinta yimaadeen dawladdu taa waxa ka qabato oo arta cabayna u baahanahay shidaalka waa iib wala kala xidhay Sacuudiga Ruushka uu yaa bixiyo shidaalka badan ayaa iibiya Ruushka wixii soo xiranaya way isagoo maanta maqriso baaranka adduunka laga xidhay isna wuxuu hayo wax xiranaya waana dalka labaad ee shidaalka u badan iibiya Sacuudiga ku soo raaca caalamka maanta dagaal baa ka socda goor dhamaana mooy meel uu gaarayna mooy bad xiran baa soo socota talayno baahna raga waliba saaran qofka dumar taagooda way dadaalaan iyada biyaha soo dhaamisa iyada xaabad doonta ta magaalada joogta iyada bacad fadhida ma dhacdo adduunka waxaan kale saddex sano waxa ku jira dawladdu sanadka imika waxa dhibaatooyinka haysta wax kamid shidaalkii imika waxa ka bedelay sharciga hore ee la oran jiray hal lagu adkeeyo safarka waa inaynu helaa kayd shidaal ganacsadana waxaanu ka codsanaynaa waxa ayana keenaan wixii jirana waan isla eegaynaa ee safarka waa ganacsiga waxa laga rabaa inuu ku jaban oo baabuur sare dilin keeno waxaan isku haynay baabuurta mid aan dilin keena laakiin maanta haday dhibaato jirto kii uu horeeyay uu jooga dahabshin baare uu taagay waa soo deynina kuwa kalena waa soo deynina haday keena inta abaarta lagu jiro waayo wax tar bay noqonaysaa iyagana waxaan ka rabaa ganacsatada shaalka jabiyaan maadaama wax badan iyaga loo fududeeyo dekada iyaguna waa shaalka jabiyaan waxaan ku dambaysiinaa ganacsatada waxa jira rag ka macaasho markay dadku dhibaataysan yihiin
وأنتم أرابط حرستكم قاليه تاسدي واحتكار دين ترى وكم موضوع ضد ما وكم موضوع هذا كل شقاد عيدمدو كمدي بوليس كمدي هاي إلا إيرانيو بنا آدمي أنتم كحدنا وحيو هاي ضدك كل ما أيام مركز دباتي سيئين كاسي إسلام ندير وكفي مجتمعين وكفي تلا بالغ قادر يدا فريا الله في صدو نيك احتكار كحدنا يا علامته إيه وكيتصير أيام مركز بعدها أتكو قاريس وحكم الرواد مهندقيا دولة الإمارات يا وكيل أمباسير كذا إنه شوكا هذه أدمر مهندقيا وحينو ترى سوماليا waxaan diray fariinta ah ad badxiran baa soo socota nin walba itaalkiisu maraya waxaynu u baahanahay inaan dib isu eegno oo aan maxaan waxa kaga bixi karaa oo rag mas'uuliyadda saaro oo meel hoose laga fikiro oo toornagta guud iska daayay waxayna garanay ee waqtigii naga dhameeyay chaadka ka mid ah kan haysta inagoo waxa ku jira maalinta inta qaadriga baxda intaasoo hawlay noo qaban lahay waa si aafar inuu darsaday malaha ducun baa naga saari karta iyo carruurteenu kala dardaaranee inteena waaweyn wuu dishooday intuu naga diran ilaahay baa og dooxan wixii ka dhici jira waa la sheegay konton nin buu sheegay ninka degmada haysta intuu joogay og yahay soo konton qof ayaa dooxadaad ku qaaday konton ka waxa ka mid ah Suudaan bar waxa ka mid ah Nuux oo ahaa sarkaal ciidamadiisu ahaa aan isku waqti ahayn Kanada ka yimid fasax ku joogay iyo boqolaal kale oo aan tiri karin dadku naga qaaday waa ilaahay mahadi maanta walaalada inaga caawin baalka hadisno iyo dadkii ka hawlgalay oo dhismo iyo dadkii ku tabarucay wixii ahayeen haday tahay gurigaaga dumi wadada ka bayn waxa